الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمان يلو شرف كسوماليات ملا جوجتان با سلانا كوركين هاتو فضلا إلى غارسيا فرينتان كوبان رير مينيابوليس oo ku soo foolay doorashada maayirka Minneapolis oo uu tartamayo dhalinyaro ah say wallahi ah tusaale wanaagsan oo xay ana oo ah dayarta Soomaaliyeed ee Mareykanka degan khaasatan Minneapolis. Soomaalida waxaan rabaa inaan ku raahdo u codeeya oo doorta mustaqbalka ilmihiina oo waxaad building ku samaysaan oo dhistaan rajada iyo hanka ilmihiina. taasna macnaheedu waxa weeyaan Cumar Faatax wuxuu tusaale u yahay da'yarta ka dambaysa ee Minneapolis iyo xawla caalam oo qurbaha khaasatan Mareykanka. marka hooyo kasta Soomaaliyeed iyo aaba kasta iyo ilmo kasta Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku raahdo halumin fursad mar la araga oo ay tahay inaad ka faa'iideysatid. waa la tartamaa waana la kala guuleystaa, laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego Cumar Faatax iyo Ilhaan Cumar iyo qayrkood oo siyaasadda ku jira Mareykanka khaasatan waxay tusaale u yihiin dadka Soomaaliyeed kow ay yihiin. waxa xaqiiqa inay Soomaalidu dhiban tahay oo ay qaybsan tahay oo ay qabaayil iyo qabyaalad ka shaqayso, laakiin mabda'a rasmiga ah maaha taasi. example waxa idin ah yaa qabyaalad isku haysta, xamar hadda yaa isku haysta, yaa garoowe isku haysta, yaa hargeysa isku haysta. yacni waa xanuun Soomaalida haya, laakiin mabda'a rasmiga ah waxa weeyaan oo macnaha samaynaya inaad tahay Soomaali. wallaahi alcadiim rajada ugu weyn oo aan nolosha ka leeyahay waa islaamnimada, talabaadna waa Soomaalinimada, ma aha qabiilka. waxaan leeyahay reer Minneapolis wakhtigu yuu idinka lumin, ha qoomamaynina fayuusharka fursad idinku aad lumiseen. u codeeya Cumar Faatax, dhisa mooralka iyo hanka ilmihiina. tusaale wanaagsan ayuu u yahay ilmaha Mareykanka, maxaa yeelay qof kasta oo fursad waxbarasho helay oo Mareykanka ku nool oo dhalinyaro ah Cumar buu eegayaa, wuxuuna eegayaa saa isugu xidhan tihiin iyo saad macna u samaynaysaan. kala qaybsanaantiinna iyo tafarruqiinnu wuxuu caawinayaa waxa uu idinla damacsan yahay Trump oo doonaya Mareykankaba inuu idinka raro. waa ogtihiin shaqadiisii hadda waxay noqotay ninkii dhammaaya loo doortay Mareykanka biisa wuxuu ku yahay Ilhaan Cumar. Ilhaan Cumarna waxa ka dambeeya oo lagu haystaa waa Soomaalinimada. marka waxaa la diidan yahay tayadiinna, waxaa lala dagaalansan yahay dhaqaalihiinna, waxaa la burburinayaa sumcaddiinna. idinku taa inaa ilaashataan oo unit ahaataan baa waajib idinku ah. haddaad lumisaan fursadda oo aad kala qaybsanaataan, cod ilmihiinna iyo idinkaba macna idiin samayn lahaana aad cid kale siisaan ama meel kale marisaan, yaa weylata taa idinka idin taala. waxaan idin leeyahay hore isu raaca insha allahu tacaala, wakhtigana ka faa'iidaysta, u hiiliya ilmihiinna oo dhisa magaciinna iyo sumcaddiinna. Cumar Faataxna soo saara, xataa hadduu dhacayo ilaahay kama dhige, yaanu ku ciilqabin cod Soomaaliyeed oo ha dhaawicinina qalbigiisa. intaasaan codsanayaa, intaasaan odhanayaa. awali marana waxaan rabnaa inaad hala sheergareeyo Minneapolis hala gaarsiiyo biliis maxaa yeelay wakhtiga cidhiidha. guul iyo gobonnimo. berritana kelmad baan ka soo odhan doonaa haddaan noolaado. salaamullaahi calaykum waraxmah.